munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay taasoo lagu maamuusay bandhig cilmiyeed ay soo bandhigeen ardayda madarasatu Junayd al-Baghdadi ee Jamaacatul Khayriya ayaa lagu qabtay xerada Xagardheera. munaasabada oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxaa ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan culimaa u diinka Ahlus Sunna wal Jamaaca, odayaal dhaqameed, waxgarad iyo waalidiin. munaasabada oo ku bilaabatay aayadaha Qur'aanka Kariimka ayaa markii dambe loo gudbay qaybtii ugu xiisaha badneed oo ahayd bandhig cilmiyeed ay soo bandhigeen ardayda ka aflaxday madarasada. ardayda ayaa soo bandhigtay aqoontii ay barteen, taasoo si weyn u caajisay dhammaan marti sharaftii goobta isugu timid. بسم الله الرحمن الرحيم.
عباديسي مريدا على المحضر وهذا وقوله عشيسي عالما على المتقن وهذا شروط الإسلام ستة شروط الإسلام وشروطها ستة وهي البلوغ قنجره والعقل قرشه والاختيار درشه والنطق والعقل بالشهادتين والترتيب كلام محمد رسول الله عليه أنه أتى إنسان كفر قانون الاستراد الخلق حتى ذلك حين يقوم حتى يعطى مرسل مستجد يلقى الخلق يستجد خلق يستجد كل تماته بشر يسوع مع سر تلتعب أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله إله والمسيح وملائكته سور المسيح وكتبه سور المسيح ورسله سور المسيح وباليوم الآخر ما ينطق عمر المسيح وبالقدر سور المسيح خيرين كيس قرطة وشرين كيس شرطة من الله تعالى إلهي حق سنة أمر المسيح على السلام تركيزة خمسة شهادة هي شهادة خلقان أن لا إله إلا كلمة إلا الله علم وأن محمد رسول الله أن محمد نبي المعلم رسول الله يا إلهي سورة الخطوي يوم القيامة صلاة المتكوي إيتاء الزكاة البيوي صوم رمضان بشهر رمضان كصومي حج بيت الله يأتيه waxaa kor waxaawaaye hadaa meesa gaar waqti dugsiyada dhigtaan laakiin saas ay tahay maasha allah waxaa weydihiin arday maaragtay waxqabad leh iyagana waxaan doonayna maaragtay in lagu dhiirigeliyo maaragtay iyagana isku istaajiyo waxaa jirta kitaab saddexaad asagana arsan jiro caqiidatu fircawnka manhajkii la soo arnay weydiyo carruurta marka kooxaan soo kicin doona insha allahu tacaala oo maaragtay kitaabkaas بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأولين الآخر البقي بالتحولي ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق. gabagabadii iyo gunaanadkii munaasabadda marti sharaftii iyo bahda saxaafadda ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyey maamulka iyo macallimiinta madrasatu Junayd al-Baqdaadi iyagoo ku bogaadiyey dadaalka ay ugu jiraan dhismaha mustaqbalka ubadka. Alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. awalan insha Allah ta'ala waa idin mahadcelinaa dhammaantiin ilaahay mahad iska leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu seefu kulmiyey xaruntan barakeysan oo maartay lagu weyneynayo laguna maxalay nashrinayo diinta islaamka thaniyan inoo suurtageliyay in maanta aan qabsano xalfadan Allah ya mahad iska leh waxaan dhammaan u mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha culimada maartay waalidiinta ardayda sharafta leh dhammaantiin waa idin mahadcelinayaa waxay tahay Awoosha Cabdiraxiin oo sayidka mar waliba nagu garab istaago nagu dhiirigeliyo nagu maartay tala celiyo oo maartay habeen maalinba noogu tahay in maartay diinta la nooleeyo asaga maxallahay aad iyo aad mahad weyn iska leh asagaan u mahadcelinaynaa asagana waxaan leenahay insha Allah ta'ala meel walba uu joogo Allah noo xifdiyo acdaadiisana Allah xijaabo anagana waxa waaye insha Allah ta'ala wada walba oo lagu dardaarmo kuwii qaata Allah naga dhigo. Khadimuddin Xukmaal TV gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.